وزير صادق داهر ميري أو وزير كمية حكومة galmudug وزيرada وزير كورشدها ganacsiga kusoo dhawow صادق magaalada Stockholm shacabkii Stockholm waa kusoo dhaweynayaan waxaan rabaa marka inaan ku bilaabo hadalka hadda aan kusoo dhaweeyo wakiil nooga yimid meel dheer North America gobolka Minnesota magaaladiisa Minneapolis ahna wakiilka gobolka Minnesota stateka Minnesota galmudug cabdikariin axmed daahir xasan kusoo dhawaad waa mahadsan maxamuud walaalayaal mar kale barasho wanaagsan aniga waxaan ka imid magaalada Minnesota dalka Mareykanka waxaan ahay wakiil galmudug ee meeshaas runtii aad iyo aad aan kaga mahadinayaa organizationka qiimaha leh oo runtii caawa sameysay isku duubnidiina iyo wanaagiina annaga waa idinku toban laabanaa laakiin idima dhawin laakiin insha Allah taala waa idinku dayan doonaa insha Allah taala waxaan rabaa magaca aqoonyahanka أحب أن نكون مهد علينا إنتي أبا شيء حفلة إيو إنتي سيدان شرفت لو وسوق يبقى شيء وحكروا أن مجع تاليد galmudug kusoo dhaweynaya wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Saadiq Daahir Mire oo in waqti ah aanu isku magaalo ahayn inkastoo aanu hubin beriga inuu joogay 1973 Janaayo ilaa 1975 waxaan ka ahaa xeeraryaha guud ee gobolada waqooyi dadweynaha wasiirka anoo kamid ah umada ku abtirsata maxaan ku iraahaa galmudug ajira galgaduudan ku dhashay galgaduud iyo mudugna wasiirka wasiir ah oo wasiirka galmudug marka soo dhaweynta dhinacayga xal ay u leeyahay marka waa soo dhaweyntan ugu horaan maarta ku dhiirigelinaya ugu horeeya kana mid ahay waxaan leeyahay soo dhawow wasiir Saadiq Daahir Mire inuu maaragtay si sharaf leh walaalihiisa u soo arko dareenkoodana la qaybsado aad iyo aad ugu faraxsan ama se balaca dadka qaar ay arkayaan inay beel yihiin laakiin anigu aan hubo inaysan beel ahayn maxaa jira waxaan arkay madaxweynaha galmudug iyo wasiiradiisa oo ka kala socda yani beelo kala duwan ka yimid iyo baarlamaanka intaasuba waxaan ogahay inay yihiin ummad Soomaaliyeed haddeerna waxaan isleeyahay rabitaankooda iyo hamigoodu wuxuu gaarsiisan yahay heer Soomaaliyeed ma aha mid ku jimaysan maarta beel taasna waxa weeye faqaaro walba waan ka sheegaynaa waan ka sheegnay waxaan ayagana ka rabnaa inay maarta ballaariyaan maamulkooda iyo hami dadweynaha madasha joogo salaam macaan omanka iyo midigta meesaman baan wadaa omanka iyo midigta meesaman baan wadaa midigta iyo bidixda ubaax miran baan sidaa marwooyin ya mudane macaankeeda iga guddoon mudane wasiir naga guddoon waraarkan quruxda badan leh adigoo ah wasiirkii galmudug waxaan ku leenahay ku soo dhawow magaalada Stockholm iyo wixii dhan عاشا يا واحد بتاعي مركز وزيرك علم سيسايدنا قبل يجي نروح كدرس علم ما شاء الله وكار علم Soomaaliya eedo casheega kanoon علم Soomaaliya eedo casheega kanoon cirkaadu wagtaa ya rabbiyo laga cabsado kuwigu caawinaynaha kama caajisa wargeysiyada reer galmudug guntiga xagsada wargeysiyada reer galmudug guntiga xagsada Soomaali u gargaara sidii geesiyeen
khaasatan gudoomiye cabdicasiis low oo maanta cudurka ka hadli karo dhammaan gabdhaha iyo wiilasha sportska waxaan mar labaad soo dhaweynaynaa wasiirkeena dhihi kara dhulkii aad nagala shaqeeyey muddadii sanadkeeda uu dhulki jiray dibudhiskii iyo dayactirkii garoonkii cabdullaahi ciise mudane wasiir saadiq daahir kusoo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan dadweynaha meesha iskugu yimid hawooyinka gabdhaha profesorada isboortiga dhalinyarada intiiba waxaan ku salaamay salaamta diinta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. salaan kadib waxa aad iyo aad qaali ugu ah maanta oo aan cusubyaha fadhiyo run ahaantii profesorka weyn run ahaanta wax badan la raadinayay in hortiisa ka hadlo ayaa maanta hor fadhiya taasna waxaan u mahadnaqaya jaalidiisa cusubtay meesha ka yimid. run ahaantii aniga haddii aan ka waramo galmudug waxa aan ka soo noqonahay waa muddo 2 wiig ah. hadda waxaan qabanay shaqooyin badan intii aan maamulka joognay galmudug waxa aan wax ka qabanay amniga oo run ahaantii caqabado badan oo dhibaatooyin badan ay nagu hortaagnaayeen laakiin maanta insha allah waxa ay noqotay meel fiican oo lagu dego. runtii anigu waxaan ka mid ahaa jaaliyadaha qurbaha jooga 20 sano ayaan soo dhaafnay joogay 20 sano qurbaha jooga waxaa iga qiimo badnayd halkaas sano aan ku noqday waddankeygii runaantii wax qabad badan runtii markii la ii magacaabay xilkaas sanadkii hore magaalada Sweden aan joogay meeshan waxaa joogay dhalinyaro oo ka mid ahaa Grand Galbeete iyo dhalinyaro kale oo aad fara badan oo maasir ka mid ah iyo kuwa kale dhalinyaro aad ilaa 10 qof ilaa 20 qof ayaan ku tilmaamay inta ahaayeen maanta intaan haystaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sida fiican aad ugu soo qayb gashay maanta.